السلام عليكم أصحابتي وحنا أصحابتي وريلي جكتبوا لي وقمني معي كل هذا وعصب تذكر كيسار لما أنتم بقولي وأنا ما إذن لي وحير أصلا في سنة قيس كان إمتي في حاوصي ما شاء الله إمتي فعلا يا إلهي وحن كبري إن هي خير بدن أول سوق بكرة مدلنا يدين دعيسة ما شاء الله غير كان ويدين دعي دعاء سواهلي سين أما أقرأ كوشينا بدون كوشينا إن شاء الله بإذن الله الكريم. waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay hooyaday 3 sano aan arag oo aan maanta aan la kulmay oo la soo daayay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa MMTV oo aan iyadoo aan la ogaan lahayn la ogaaday maanta farxad weyn waxaan nuur oo carruurteedii la qaybsan doonta caawa diyaaleena oo gurigeeda ku hooyan doonta waxa uu ahaa dareen farxadeed oo indhuhu xijin waayeen ilinta waana mid kulmiye hooyo iyo carruurteedii oo muddo 3 sano ah hayndaab adagi kala dhex yeelay balse maanta alla qadaray inay dib u mudoobaan iyagoo xor ah waa maalin ay naawilayeen kumanaan Soomaaliya oo kala jooga daafaha dunidu inay arkaan natiijada ka dhalata samafalkii iyo sadaqadii ay la baxeen si ay u caawiyaan maamadan haddaba barbilowga sheekada soondeynta maamo Nuura Maxamed oo Cali oo aan u galnay safar kooban ayaa ku bilaabantay halkani waa kantaroolka galbeed ee magaalada Hargeysa waxaanu safar gaaban u gali doonaa magaalada Gabiley si xabsiga Gabiley aan uga soo doyno hooyo muddo 3 sano u xiran deyn lagu yeeshay kaas oo telefishinka oo hore idin la wadaagay deyntan ay maamadu u xiran tahay oo ahayd lacag dhan $25,700 ayaa waxa ka soo qayb qaatay muxsiniin Soomaaliyeed oo kala jooga dhulyowga Soomaalida iyo sidoo kale daafaha dunida waxaanaanu maanta indhahooda ku tusi doonaa maxsuulka iyo natiijada ka dhalatay inay bixiyaan lacagtaasi si ay u soo furtaan hooyo muddo intaa leeg ka xiran carruurteedii dawadayaal waxaan hortaaganahay xabsiga weyn ee magaalada Gabiley hadda ayaan gudaha u gali doonaa si mas'uuliyiinta xabsiga aan u guddoonsino warqadda isla markaasina banaanka aan ugu soo saarno maamada halkan 3 sano ku xidhnayd waxa farxadna ah in maanta aynu ku guuleysano ugu dambeyn soo deynta hooyo Nuura Maxamed oo Cali oo sheekadii telefishinka MMTV baahiyay muddo ku dhow 4 ilaa 5 maalmood ka hor waxay ilaahay mahadiyeen 5 maalmood gudahood ay soo saaro waqti kooban gudahaas runtii markii lacagtii saakaanu geynay oo cadadkaas ahay $25,000 $701 oo markaasi ay lahaayeen dadkii qaanta u sheeganayay MMTV oo isu xilsa horta waxaa muhiim ah in lacagtii ka bixiyeen ma sha Allah intaasaa muhiim ah إن شاء الله بإذن الله كريم وحا مهم العقل laga bixiyo MMTV-na waxaan la ilaahay waxaan ka bari in ilaahay janno fardoosin kugu bedelkeeda waxaa muhiim ah hooyada lacagta in laga bixiyo oo ilmaheeda ay la midowdo 3 sano ka bacdi yaa soo saaray MMTV ilaahay waxaan ka bari kuwa lacagta bixiyay adinka ka sii ajar badan kuwaas maxaa yeelay adinka waxaad ogaateen dadkan dhibaataysan carruurtan iyo hooyadan kala irdhoobay maxaa dareemi lahayd hooyo carruurtaada adintaas xabsi ku jirto wax ka bixin hada ogeey Allah subhanahu wa ta'ala